nabadgelyo qof walba oo aadanaha ka mid ah mar uun wuxuu ku taamayaa gaaridda heer sare balse in badan oo inaga mid ahi waxaa ka khaldan in meel sare la dhahahi way fududahay balse meeshaas sare inta dhib iyo saxariir ka soo horaysa diyaar ma u nahay inaynu u dulqaadanno guushu ma xigsato dadka caddaanka ah ama kuwa taajiriinta ah balse waxay u soo carartaa guushu qofkay aragto inuu ka hari waayey isagu waa dadkii aaminsanaa never give up marnaba ha isdhiibin sababtoo ah wuxuu ogaa jidkan dheer inuu kala kulmi doono dhib iyo saxariir ka badan intuu malaysanayay marnaba ma uusan isdhiibin marnaba ma uusan niyad jabin balse dadaal iyo howlkarnimo ayuu ku sii badiyey noloshii adkayd ee uu soo arkay iyo guuldarooyinkii xanuunka badnaa ee noloshiisa saameeyey qof yahow idaawanaya hadday kugu dhacdo arrintan maxaad samayn lahayd haddaad imtixaanka iskuulka marar badan aad ku dhacdo dhib iyo saxariir kadibna aad dhammayso iskuulkii iyadoo nolosha waddankiinu iyo qoyskiinuba tahay tan ugu xun ee markaasi duni ka jirtaa kadibna aad codsato jaamacad aadna ku dhacdo imtixaanka aqbalidda jaamacaddaasi in ka badan 3 jeer kadibna aad iska gasho jaamacad tan ugu xun ee markaasi ka jirta waddankaaga adigoo og jaamacaddaasi haddana marka ay da'daadu kororto aad jeclaato inaad noloshaada isbeddel weyn ku samayso aad codsato shaqo adiga iyo 33 qofood oo kale balse laga aqbalo codsiga 33 kale balse adigu aad tahay qofka keliya ee loo diiday shaqadaasi shaqooyin badan aad codsato in ka badan 30 jeerna aad isku daydo inaad shaqo codsato balse dhammaan isku daygaasi uu fashilmo xitaa aad hamisay inaad ku biirto ciidan tabar daran oo dunidaba laga aaminsaneen markaad codsatay ciidankaasina intii kula codsatay codsigooda la aqbalay balse adigu aad noqotay qofka keliya ee haddana loo diido shaqadaasi noloshu sidee bay ahaan lahayd xaqiiq waxaan hubaa intaad soo gaarinba shaqo codsasho iyo doonis noloshaada inaad wax ka beddesho inaad noqon lahayd mid noloshiisa u dhiiba mawjadaha xun ee nolosha ama naftiisaba ka takhallusa sababtuna ay tahay dhibka weyn ee aad soo aragtay isagu wuu ka duwan yahay malo walba aad malaynayso inuu sameeyey isagoo intaasi la soo kulmay buu haddana maanta yahay shaqsiga ugu lacagta badan dalkiisa deeq-bixiye caalami ah mid ka mid ah 50kii qofood ee ugu saamaynta badnaa isagu waa Jack Ma aasaasaha Alibaba Group Jack Ma waxa uu dhashay 10kii Sebteembar 1964 waxa uu ku dhashay magaalo yar oo ku taala China oo lagu magacaabo Hanshu waxaa la dhashay gabar iyo wiil hooyadii iyo aabihii waxay ahaayeen musicians yacni kuwa music garaacayaal ah maysan awoodin noloshiisa inay wax badan ka bedelaan inkastoo xilligii iskuulkiisuba uu ahaa xilli dhib badan balse isagu wuxuu ahaa qof aan marnaba niyad jabin markuu dhib iyo saxariir ka soo maray iskuulkii sanado kadib waxa uu suura gashay inuu dhammeeyo iskuulkii balse waxa uu codsaday jaamacad balse waxa uu ku dhacay imtixaanka aqbalidda jaamacadda ee qabuulka loo yaqaano 3 jeer markuu la kulmay niyad jabkaasi faraha badan waxa uu ku biiray jaamacad yar oo magaaladaasi ku taalay oo uu ku qiyaasay kuwii ugu liitay ee xilligaasi dalkiisa ka jiray Jack Ma waxa caawiyay luqadii Englishka dalka China waxa booqasho ku yimid madaxweynihii xilligaasi ee Mareykanka kaasoo booqasho ku tagay dalka China taasi waxay u suura gelisay in dunidu aragto China ayna u bilaabato kobac dhaqaale iyo iftiin qurxoon oo ka imaanaya dalxiisayaal doonayay inay booqdaan China Jack Ma waxa uu ka faa'iideystay fursadaas waxa uu riyadiisii luqad jacaylkii Englishka uu u bedelay mid dhab ah isagoo ka sheekeynaya waxa uu yiri hotel ku yilay magaalka ayaa waxa imaan jiray ama ku soo degi jiray dalxiisayaal fara badan aniguna waxaan soo qaadan jiray baaskiilkayga si aan xitaa hal eray uga soo faa'iideysto dalxiisayaashii meesha imaan jiray waxaana ku soo wareejin jiray magaalada anigoo kala baraya magaalada hab bilaash ah waxa uuna yiri
waa meeshay ku korortay awoodeydii Englishka. Riyo walba mar bay rumowdaa. 1988 shahaadadii ugu horeysay ayuu wuxuu ka qaatay kulliyadda luqadaha isagoo khabiir ku noqday luqadda Englishka. Waxa uuna bare sare ka noqday jaamacadda Hanshu isagoo bishii qaadan jiray lacag lagu qiyaaso $10 oo keliya. Guuldarooyinkii isku xigxigay ee soo wajahay Jack Ma. Ma malaynayo ruux hadduu la kulmo dhib la mid ah midkii Jack Ma in uu riyo rumayn karo. Sababtoo ah wuxuu yidhi, mar baan waxaan shaqo ka codsaday KFC, aniga iyo shakhsiyaad kale, balse KFC waxay codsigooda aqbashay dhammaan intii ila codsatay, balse anigu waxaan ahaa qofka kaliya ay codsigiisa diiday. Waxa kale oo uu yidhi, waxaan 10 jeer ka badan codsaday Harvard, balse hal jeer xitaa kama helin jawaab i qancisa oo ah in la aqbalo. Markuu intaasi la soo kulmay ayuu doorbiday in uu ku biiro ciidankii China, balse haddana sidii nasiibkiisuba ahaa waa la diiday codsigiisa. Inkastoo inta la socotay codsigooda la aqbalay, isagu wuxuu ahaa haddana qofka kaliya ee la diiday codsigiisa. Qof intaasi jeer guuldaro la soo kulmay ma malaynayo in ay jiraan wax kale oo uu hamiyo, balse dhammaadkii sagaashameeyadii waxaa soo ifbaxay tartankii tiknoolajiyadda iyo website-yada. Jack Ma 1995 waxaa loo diray Mareykanka, halkaas oo uu fikrado ku soo arkay. Waxa uuna dib ugu soo laabtay China isagoo sameeyay website-yadii ugu horeeyeen ee China ay yeelato, wuxuuna ahaa China Pages. Website-kaas uu isaga sameeyay waxaa kula midoobay dowladdii China, wuxuuna dareemay in fikradiisa aan la tixgelin, wuuna isaga tagay website-kii uu isaga abuuray. Asaasidii Alibaba Group 1999 Jack Ma ayaa waxa uu la wadaagay saaxiibadii fikrad taasoo ah samaynta website wax lagu kala iibiyo. Yacni qof walba waxa uu rabo in uu dalbado, qarashkaasna uu ku bixiyo hab digital ah, gurigiisana loogu keeno. Waxay ahayd xilli dhib badan, dadkuna tiknoolajiyadu ku cusub tahay, balse way suura gashay fikradaasi, wuuna rumeeyay fikirkaas. Maanta waxaa yar qof aanan garanayn Alibaba. Waa suuq weyn oo lagu kala wareejiyo malaayiin shay. Alibaba maanta waxaa ku xiran in lagu qiyaaso 800 oo milyan oo customer ah ilaa iyo tiro gaaraysa 1 bilyan oo qof. Jack Ma waxa uu tusaale u yahay qof walba oo raba in uu guuleysto. Sheekooyinkiisuna waa sheekooyin ina baraya inaan marnaba niyad jebin, boorkana aan iska jafno. Jack Ma waa shakhsiga ugu lacagta badan dalkiisa, deeq bixiye caalami ah, shakhsiga 18aad ee ugu taajirsan adduunka, mid ka mid ah 50 qofood ee ugu saameynta badan adduunka. Isagu waa Jack Ma, cabqariga reer China. Ereyga dhiirigelinta maanta. Noloshu waa kuf iyo kicitaan. Haddaad kala garan weydana, kufkaad u dambayn doontaa. Dheeftu ma ahaato ilaa dhibka gadaashii mooye, waa sida guushuna. Haddaad rabto inaad guulaysato, haddana aadan awoodin aqbalidda dhaawac waliba uu ku soo gaara, xaqiiq dadka nolosha ka hara ayaad noqon doontaa. Intaad nooshahay waad arki doontaa wax ku dhiba oo kaa hor yimaada, balse hadafkaagu yuusan ku seejin dhagax yar oo hortaada yaala. Adigoo dhagaxaasi iska leexin kara, horena uga sii socon kara. Ha isdhiibin, hana isniyad jebin, garo waxaad ku wanaagsan tahay, waxaasna xoogga saar. Noqo kan ugu wanaagsan shaygaas, hana niyad jebin, hore u soco. Waxa ku xayiraya waa inaadan isgaran, howlna aadan qaban. Xaq baan u leynahay inaynu guuleysano. Insha Allah waana guuleysan doonaa adduun iyo aakhiro. Fiidiyogan intaasi buu noogu egyahay. Intaan barnaamij kan la mid ah aynu ku kulmi doono, anigu waxaan ahay Sayid, waxaana idin leeyahay guul iyo gobonnimo, nabadgelyo korkiina ha ahaato.